halkani waa caasimadda maamulka waqooyi bari ee Laascaanood. Laascaanood waa magaalo taariikhi ah, waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu faca weyn uguna muhiimsan dhulka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhinaca ganacsiga, dhaqanka, siyaasadda. 16 January 2026 waxay Laascaanood martigelisay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre. waa taariikh aan dhicin 39 sano kadib. Laascaanood oo ah caasimadda maamulka waqooyi bari waxay marti qaadaysaa in ka badan 1400 oo marti ah. shacabka reer waqooyi bari ee Soomaaliyeed waxay dareemayaan farxad aad u weyn. waan ka sameynaa wiilkii dhintay, waan ka sameynaa kuwa dhaawaca, maanta midhii qoranaynaa, waan qiirooda. madaxweynaha iyo waftigiisa waxaa garoonka ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan heerarka kala duwan ee maamulka waqooyi bari, dhaqanka, waxgaradka, haweenka, dhalinyarada, kuwaas oo muujiyay farxad iyo soo dhaweyn ballaaran oo ku aadan booqashada taariikhi ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud soo xidhay. booqashada madaxweynaha ee Laascaanood ayaa astaan u ah adkeynta midnimada dadaalka dowladda federaalka ay wado, taasoo ah in ay u tahay udub dhaxaad dhulka Soomaaliyeed. madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay waqooyi bari waxa uu kulamo la qaadan doonaa hoggaanka iyo hormuudka waqooyi bari si loo xoojiyo midnimada, nabadda iyo cadaaladda ay ku dhisan tahay maamulka waqooyi, taasoo in badan ay dowladda waqooyi bari dadaal badan soo gelisay dhanka horumarka, isbeddel siyaasadeed, ka dhamayn himilo iyo fulin mashaariiceed oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka hirgelin doonto maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya.